maamulka gobolka Hawd oo ka wakiila shacabka ku dhaqan gobolkaasi ayaa halkan oo ah taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku wareejiyay deeq ariya ay ugu tala galeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabada arigan ay ku wareejinayeen waxa goobjoog ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland warayna waxa halkaasi ka hadlay warasaabka gobolka Hawd isagoo ka warbixiyay deeqdaasi ay ugu tala galeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay baa mahadleh isku keenkeen halkan aan isugu imaano dago maanta guddoonsiinayna ama wareejinayna hadaan nahay gobolka Hawd ari xoolo nool oo ah 600 neef waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid kastoo ka soo qayb qaadatay oo u horeeyaan shacabka gobolka Hawd afarta degmaba oo isku xilqaamay inay ciidanka qaranka garab istaagaan heel iyo hooba oo maantana u soo huray xoolo nool waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen khayr Allah inuu bedelo hadaan nahay gobolkii Hawd iyo gobolada kaleba mar walba shacabka Soomaaliland ciidanka qaranka way garab taagan yihiin heel iyo hoona way la garab taagan yihiin waxaan u soconaa aanu taaganahay waxa weeyaan wareejinta 600 neef aan ku wareejino taliska guud ee ciidanka qaranka halkan maanta waxaan ka cadaynayaa inaanu ku wareejinayno ciidanka qaranka Soomaaliland 600 neef oo ariya oo aanu ka keenay gobolka Hawd degmada Balcabane Sayla Gumburaha iyo degmada Beledweyne geestooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Maroodijeex iyaguna u mahad celiyay shacabweynaha kala duwan ee gobolka Hawd sida ay u taakuleeyeen isla markaasina ay u barbar istaageen ciidamadooda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan xuduudaha dalka waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu joognaa maanta bishu tahay 12 Sebtembar taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland halkaas oo aan ku guddoonsiinayno tiro ariya oo gaadhaysa 600 iyo waxoogaa oo laga soo qaaday ama ay ku deeqeen una deeqeen jiida hore ciidanka jooga gobolka Hawd mudanaha banduule iyo hoggaanka hawlgelinta hoggaanka saadka iyo dhammaan hoggaanada kale ee ciidanka halkan taagan waxaanu idin ka codsanaynaa inaad naga guddoontaan jiida hore ciidanka jooga oo aan ugu tala galnay tanu barbilow tahay laakiin ay soo socon doonto annagoo ka soo jeedna gobolka Hawd wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka wasiir ku-xigeenka horumarinta beeraha wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolkan Maroodijeex waxaanu idinka codsanaynaa inaad naga guddoontaan waa barbilow waana soconaysaa waxaanu barbar taaganahay ciidankoo dhan waayo ciidanku sharafteena ilaaliyaan magaca Soomaaliland bay kor u qaadeen waa lagu soo hirtaa waa lagu seexdaa reer Soomaaliland dadkooda oo dhami min masuul ilaa iyo shicib waa wada ciidan aad baan ugu mahad celinaynaa dadweynaha reer Hawd deeqda inta leeg oo waliba deeq kalena ku maqan inay ciidanka qaranka deeqda soo gaarsiiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa dad waligoodba halgamada dalkani uu leeyahay qaybtooda qaadan jiray oo hormood ka ahaa marka waa qaybtii ugu horeysay dadka kale ee reer Soomaaliland iyo gobolada kale reer Soomaaliland inta ay ka badan baa iyagana laga rajeenayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ciidanka qarankuna waxaan leenahay guuleysta way guuleysanayaan taasi shaki kuma jiro waxaan maanta deeq ku wareejinaynaa ciidanka qaranka deeqdaas oo ka timi gobolka Hawd ama aan idhaahdo gobolkii halganka oo wali halgankii ku jira aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa barasaabka gobolka Hawd iyo maamulka gobolka Hawd ee xoolahan aad u fara badan 600 iyo googa maanta halkan ku wareejinaya waxa weeyaan gobolka Hawd waa gobolkii halganka halgamadii horena aad uga qayb qaatay ilaa iminkan halgankii ku jira wuxuu bay cadeynaysaa inaan wali halgankaynu ku jirno dagaal kuma dhamaado waxa weeyaan ilaahay naga dhameeyay laakiin kulay dawlad hadaa tahay cadawga ugu far badan yahay ciidanka qaranka loo biqi maayo waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan gobolkaygan Maroodijeex iyo gobolka Hawd oo runtii u taagan dhammaantood in ay taakuriyaan ciidanka qaranka taasoo runtii annaguna gobol ahaan aanu isku dubaridno hawlahaas maalin kasta oo ilaahay soo godina aanu wadno taakuraynta aanu wadno maanta gobolka Hawd ilaahay khayr siiyo barisaabku hawsha hogaaminayo in 600 neef oo ariya la guddoonsiyo ciidanka
gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay abaanduulaha koowaad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan cabdirasaaq afguduud isagoona u mahad celiyey shacabweynaha reer somalilan sida fiican ay u garab taageen ciidamadooda qaranka jamhuuriyadda somalilan ee naftad hurayaasha isla markaasina ku sugan xuduudaha dalka jamhuuriyadda somalilan waxaana ka mid ah hadaladiisii dhammaan halkana kusoo dhaweynaya taliska guud ee ciidanka qaranka iyagoo ay wasiirada iyo wafdiga iyo madaxdaasi ay noo wadaan oo aan ka gudoomiyay ugu wareejinayaan 600 oo neef aniga hogaamadaydii ciidankaygii oo isbarbar taagan ee taliska guud taagan inay nagu wareejinayaan deeq gobolka hawd keenay oo 600 oo iyo dheeraad tiradeedu tahay oo neef oo ariya oo runtii ay ugu deeqayaan ciidamadu xagga dawlad ahaan taakulaynteeda iyo logistikadoodu way isku filan yihiin hase ahaatee dadweynaha iyagoo jecel ciidankooda oo garab taagan waxay ugu deeqayaan oo ay u muujinayaan inay barbar taagan yihiin iyagoo degmo ah iyagoo gobol ah maxamed wardi iyo cabdicasiis cali nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa